ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. munaasabadan oo ahayd tii 20aad ee loo qabtay arday kaalimaha hore ka galay tartanka quraanka kariimka ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay qabatay jamciyadda quraanka kariimka kana kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyo gobolada dalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda, culimaawoodiin, madax ka socotay jaamacadaha iyo qaybaha bulshada. Hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo taabagelinaysa tartanka ayaa abaalmarino isugu jira lacag iyo gaari guddoonsiisay ilaa 30 arday oo kaalimo fiican ka galay tartanka, waxaana ugu horeyn ka hadlay qaar kamid ah culimadii iyo martidii kale ee ka soo qayb gashay. jamciyadda quraanka kariim Soomaaliya oo sanadkii 20aad u dabaaldegaysa tartankii ay qaban jirtay bisha Ramadaan, marka gogashan halkaas waxay ku saabsan tahay xafladaas abaalmarinta ah oo dadka mutasaabiqiinta oo diinta alla ku tartamay quraanka ku tartamay lagu abaalmarinayo. waxaan baraarujin lahaa dadkii barnaamijyadan waalid iyo macallimiin iyo muassasaad balaho arrimahan abaabuliyo ka shaqeeyay in haddana xaggii sunnadii kutubtii cilmiga ahayd oo sharciga ahayd axaadiithii iyo cilmigii kale haddana xifdisiintoodii in barnaamij loo sameeyo oo ilmuhu ay noqdaan caalimiin ay noqdaan. farxad weyn ay tahay inaan maanta qayb galo barnaamijkan. haddaa ii fasaxdin hal tala ayaan u jeedin lahaa dhalinyarada ama ardayda oo ah in ay mar walba quraanka inay isku xirnaadaan. 120kaas arday ee tartanka galay wax arday ah oo dhacday ma jirin, ayagoo dhan waxay ku baaseen wax 80 ka badan, taasoo micnaheedu ay tahay qofka ugu koreeya meesha wuxuu galay dagaal iyo tartan aad u xoogan. xogayaha jamciyadda quraanka kariimka Cabdirashiid Aadan Isxaaq iyo gudoomiye ku-xigeenka Hormuud Salaam Foundation Ibrahim Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay tartanka iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada. waxaan mahadda koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afaraad u mahad celinaynaa sharikad waxa waaye Hormuud Salaam Foundation taabageliyaha tartankan ayada ayaa taabagelisay. baabuur baan bixin doonaa horta baa ardayga koowaad baabuurkana waxa ku xardhan Salaam Somali Foundation. marka waxaan leenahay Hormuud Salaam Somali Foundation waxaan leenahay khayr Allah idin siiyo, quraankii baad nuuriseen. maantana waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka nahay ardaydii oo quraanka aykana lagu tartansiinayo. marka insha Allah jamciyaddana waanu hambalyeeynaa. waxaan ku faraxsanahay 20 sano oo runtii ay shaqada soo waday aad ugu faraxsanahay. shaqo in la daa'imo wax sahlan ma aha. ugu dambeyntii waxaa gaari la guddoonsiiyay Cabdulqaadir Yuusuf Maxamed oo kaalinta koowaad ka galay tartanka, waxaana halkaasi ka hadlay isaga iyo Zainab Ismaaciil Maxamed oo ah hooyada dhashay. maanta ma qiyaasi karo dareenkayga. waxaan marka labaad u mahad celinayaa waalidkayga intaas garab istaagnaa iyo macallimiinteeda aan marnaan hilmaami karin. marka saddexaad waa u mahad celinayaa Hormuud Foundation. farxadayda lama soo koobi karo. ma sha Allah munaasabadan intii soo qaban qaabisay iyo intii ka shaqeysay iyo macallimiintii iyo maaragtay mashaaikhdii ayaan u mahad celinayaa iyo shirkadda Hormuud. ma sha Allah aad iyo aadan ugu faraxsanahay wiilkaygana waxaan leeyahay ma sha Allah barakallah. Said Umar Sheekh Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Muqdisho.